waxaa suuqyada kala duwan ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo aan booqannay ayaa aan kuurgalnay sida ay muslimiintu ugu diyaar garoobayaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Waxa aan kormeer ku tagnay suuqa jaamka ee xaafadda Islii waxaana indhahayagu qabanayeen isbeddelka suuqa oo ah mid aad u jaam badan. qaar ka mid ah dadka ganacsada qaybaha kala duwan ee khudaarta oo la hadlay warbaahinta SBC ayaa hambalyo u diray dhammaan muslimiinta iyagoona walaac xoogan ka muujiyay maciishada kor u kacday. Cabdilaahi adigana waan ku salaamayaa aad iyo aad baa maxaan dhahay maciishadu u kacsan tahay waliba bilqusaan bisha Ramadaantu intay soo gashay aad iyo aad bay u kacsan tahay maxaan dhahday haday qudradda tahay haday maciishada kala tahay aad iyo aad bay maxaan dhahay u kacsan tahay wax waliba maalin waxaan rajaynaynaa insha Allah biidmi Ilaahi karim isbedel kale inuu yimaado waad aragtaa maxaan dhahay suuqu maxaan dhahay aad iyo aad maciishadiisu u qaali tahay waan ku salaamayaa hooyo khayr iyo barkan. Assalaamu calaykum daahira xasan maxamed wallahi horta rabraawa iska barakaysayahay ma sha Allah laakiin maciishadihi iyo qudaartii qaali nuga aga qudaarta wallahi saa'id lacagtii dhibal noqotay baradhada awal hore waxay ahayd 500 hadda 900 la gadaa yaanyada waxay ahayd 400 700 la gadaa shay walbo laba jibaara saar ma fahamta sidoo kale raashinka wax walbo oo magaalada laga iibsado waa qaali hadda abo magacayga xal laha ismahan Ramadaanka wallahi ma sha Allah wallahi Ramadaanka hore Ramadaankan xogaa difference u dhaxaysa laakiin alxamdulillah rabbil alamin wallahi maciishada aad ay u sareysaa xooliyo qaali noqdeen qudaartii qaali noqotay wixii oo la goyn la yahay wallahi ma sha Allah alxamdulillah ma dhikarnaadi muslimiinta Allah barakeeyo la magacayga xasan aadan nuur waaye waxa ka qudaarta jaam street ma sha Allah qudaartu qaali way laakiin saniyo Ramadaankii hore kambo isku mid loo maciishada kor zaid bay kor u aaday marka waxa la muslimiinta dhamaan Ramadaanka rabaankiisa ay badan u gaarsiin billaah kariim oo soo weeyna Ramadaanka insha Allah aad baa loo adeegan ma sha Allah oo ujeedaa qablu soo adeeganayaan si fiican baa loo adeeganaya ma sha Allah. Assalaamu calaykum Ramadaan mubaarak inta islaamka ah meesha aan ka ganacsanaa timirta iyo biskudka iyo rootiga wax kasta qaali waaye timirta sanadka ay sanadka isku qiimo maahin سائدات wax kasta macsharada wax kasta loo kaceen Ramadaankii hore wax kasta raqiis ah laakiin hadda wax kasta qaali waaye wax kasta lama gadi karo wax kasta dollarkii wax kasta oo qaaliyoobeen sida hore ma soonkii hore la mid ah laakiin hadda ma sha Allah laakiin soonkii hore ka fiicnaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacay waa Samiira Cabdikariin Ramadaan mubaarak waxay Ramadaanka ruuxu noogu duuyaa Ramadaan wax kasta waa qaaloobeen wax kasta beecay expensive noqdeen dadkii wax ku kataan ma haystaan Ramadaanka waa loo diyaar garoo la dadku wax ma haystaan laga beeciyeen wax noo gadanaa qof kasta wuxuu ku leeyahay waa qaali marka maciishadina cirka ah Ramadaanka hore wax kasta raqiis u ahaa doolarka raqiis u ahaa lacagta wax ku soo qaadana way noo raqiisneed hadda laga Ramadaanka wax kasta cirkoo nagu aaday waa nagu qaaloobay meesha wax kasta aan Ramadaanka hore taan kaga soo qaadanaynay timirta كوني 200 كوني 500 كوني 600 ku soo qaadin haddana waxaan ku soo qaadanaa 2200 marka different weyn u dhaxay qaar ka mid ah shacabka xaafadda Islii ayaa dhammaan muslimiinta ugu hambaliyeeyay munaasabadda bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan muslimiinta dhammaan ugu hambaliyeynaa bisha Ramadaan soo galideeda bisha barakeysan in laga faa'iideysto isku naxariisto muslimiinta isku naxariistaan isku turo wali waqti waxay ku soo aaday abaari iyo dhibaatooyin fara badan ay jiraan adduunka uu ka jira marka muslimiinta waxaan si naxariis laga codsanayaa muslimiinta in isku naxariisto isku turo isgarab istaago muslimiinta waxaan leeyahay hambali meel kasta joogaan Allah naga aqbal cibaadada Allah naga aqbal taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal waxay ku soo aaday waqtiya dadka aad ay u dhibaataysan abaar laga soo baxay marka hatta Ramadaani hore ma jirin saad ogtiin coronavirus wax baa jiray oo taraawiix iyo ma jirin marka Ramadaantan والحمدلله ربنا وإما إله ونعمي لكن دبعت بدنا للصومري مركب مسلمين توحى ونكبرنا إن عبادة لبضية بسكننا حريسته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أمان وني سلامة أمة سوماليات مل بجوكتين حنوهم بلينا يا رمضان كريم وحياله فرب بدنا يجد كنتها عافي ماذا كجاري ما شاء الله ضدك ورنا لصوم مانتنا لما جوجان رمضان كهر قدم بيانا إلهي si wanaagsan aan ugu gaarsiiyo caafimaad dheer iyo cimri dheer nabad leh inuu Ilaahay nooga dhameeyo. My name is Bashir and I wish you all the Muslim to Ramadan Kareem and this month of Ibadah and people should wake up all the time and do the Ibadah
inshallah may Allah bless you all the people of the Muslim inshallah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Maxamed. waxaan rabaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba caalamka ka joogaan inaan dhaho hambalyo Ramadaan mubaarak. waxaan idin leeyahay ramadaankiisa kale Ilaahay barwaaqo bashbash nabad ha nagu gaarsiiyo dhammaan meel walba dunida ka joogtiin khayr iyo nabad ku soo. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Anoo magacayga ah Zakariya Maxamed Cabdulle. Ramadaan Kariim ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u hambaleynayaa Ramadaanka soo dhow insha Allah aan noqono midkii ka faa'iideysta iyo acmaasha iyo mataqaanaa Ilaahay kurinaana dadkii ka faa'iideysta Allah naga wada dhigo. Ramadaankan wallahi waa Ramadaan jabi degan waaye alxamdulillah way oo jabi barwaaqo ah. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryayaa inuu acmaashan inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waafajiyo soonkaas kalena Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nabad iyo caafimaad nagu gaarsiiyo.